yaa ahlan yaa wasahlan daawade maanta waxaan kula wadaagi doonaa shakhsiyaad dhowr ah oo muuqaaladooda aalawa dadka cabsi gelin karta. Dennis Avner waxaa lagu naanaysaa Stalking Cat. ninkan ayaa wajigiisa ku sameeyay qalliimo dhowr ah si uu u shabaho shabeel yar oo uu korsanayay, halka uu jirkiisa ku sawiray tattoos iskuna ekaysiiyey dhadig. intaas waxaa uu sii dheer in bishimaha uu qalliin isaga sameeyay oo uu foolishiisa hore ku bedelay mid kaloo shabaha miciyo shabeel. Eric Sprague wuxuu ku magac dheer yahay The Lizard Man. waxaa loo arkaa inuu yahay qofkii ugu horreeyay oo carabkiisa kala jeexa. tattooska lagu sawiray jirkiisa oo kaliya ayaa qaadatay 700 oo saacadood, isagoo u dan lahaa inuu isu ekaysiiyo masluugaleyda. kadib foolashalkiisa ayuu qoray, halka uu maqaarka dhigiisa uu waasiciyay. sidoo kale carabkiisa ayuu 2 jab u qaybiyay, taasi oo ugu dambeyn ka saaciday u ekaanshiyaha masluugaleyda. Rick Janest, Zombie Boy ama wiilka horarka ah. ninkan mar waa actor, mar waa fashioniste, marna waa fanaan. tattooska jirkiisa lagu sawiray waxay qaadatay 24 saacadood. wuxuu shabahaa skeletonka ama horarka sida The Walking Dead, oo macnihiisa af Soomaaliga ugu dhow uu noqon karo meydka lugeynaya. Tom Leopard oo lagu naanayso Ar-Rajul Fahd ama ninka haramcadka ah. Tom ayaa kaga baxay kharash gaaraya $5,000 si uu jirkiisa ugu ekaysiiyo sida jirka haramcadka. wuxuu ahaa military ku noolaa jasiirad cidlo ah oo u dhow dalka Scotland. Horace Rell, Zebra Man ama ninka dameer farowga ah. ninkan ayaa dhammaan jirkiisa ka wada dhigay tattoos min madaxa sare ilaa iyo ciribta hoose. wuxuu muuqaalkiisa u bedelay muuqaalka dameer farowga, isagoo isugu magac daray quruxda xayawaanka. Maria Joyce Christian, Vampire Woman ama marwada dhiigyacabka ah. gabadhan ayaa ahayd hooyo iyo qareen, balse waxay la kulantay xadgudub aad u foolxun. haddeer waxay hogaamisaa hay-ad dadka lagu caawiyo, iyadoo muuqaalkeedii hore u bedeshay muuqaalkan cabsida leh si ay ugu caawiso dadka kale ee dhibban. Elaine Davidson, gabadhan u dhalatay dalka Brazil, ayaa wajigeeda ku sharaxday silsilado iyo kuulo aad u yaryar oo tiradooda lagu qiyaasay 6,005 oo kuulood. Paul Lawrence oo lagu naanayso The Enigma. ninkan ayaa jirkiisa ku qariyay tattoos, halka uu caanka ku yahay bandhigyada indhasarcaadka ah sida liqidda seefta, afka iyo bishimaha oo biro la surto, iyo kuwo kaloo intaasi ka badan. Lucky Diamond waa nin u dhashay Australia oo ku caan ah bandhigyada indhasarcaadka ah ee halista badan, isagoo dhammaan jirkiisa ku wada qariyay tattoosyo kala duwan oo uu jirkiisa ku sharaxay 3 jeer oo kala duwan. ninkan ayaa taasi ka dhigtay ninka ugu tattooska badan caalamka. haddii aad xiiseynayso muuqaalo documentary ah sida nolosha xayawaanaadka duurjoogta ah, caado dhaqameedka qowmiyadaha iyo la yaabka, fadlan nagula soo biir oo gambareelka u furo channelka MMC Moment. mahadsanid.